Asalaamu calaykum saaxiibada qiimaha badan kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan ku baranayno types of reinforced concrete slabs. Imise nooc ayaa jirta oo concrete slab ah? Aaday u badan yihiin. Labaatameeyo xataa waa ka badan yihiin. Balse aniga waxaan soo koobay oo aan soo aruuriyey kuwa aan isleeyahay waa inta badan waa common oo inaad wax ka barato waa muhiim waa. Okay? So marka noocyo kala duwanaa jiro kuwa inta badan la isticmaalo dhismayaasha marka la joogo ayaan soo qaatay. Waxa ugu horeeya conventional slab. magac kaloo loo yaqaano oo caan ah isagana waxa waaye waa solid slab waa. So markaan isla barano conventional slab ama solid slab waxa uu yahay. Conventional slab waxaa support gareeya ama celiya beam, okay? Iyo kadibna column sii haayo, okay? Labadaana uu isku u baahan yahay macnaha. So markii conventional slabka marka waxaa lagu dhahay thicknesska slabka uu yar yahay. Laakiin depthiga ama cumqiga waxa la dhaho yani inta hoos u degsan yahay beamka waa large waa. Tusaale ahaan waxa ka soo qaadaa slabkeena waa kan ahaa. Okay, slabkeena beamkina halkaan ayuu ku jiraa. Okay, slabkeena marka waa qaybtaas kore. Okay, slabkeena marka thicknesska uu yeelanayo, thicknesska halkaan uu ku yeelanayo iyo beamkeena thicknesska uu yeelanayo waxaa weyn beamka depthiga uu yeelanayo ayaa markasta weyn. Warkaas intaas ayuu ka wadaa. Slabka thicknesskiisa waa small markii la barbar dhigo beamka depthigiisa. Conventional slabka marka waa laba nooc waa. nooc waxa la yiraahdaa one way, okay? noocna waxa la yiraahdaa two way. Maxay ku kala duwan yihiin marka? One way waxa isla ognahay inuu conventional slabka kamid yahay, okay? Waana rectangle waa, rectangular in shape waa. Slabka noocyo kala duwan oo qaadan karaa iyadoo waxay ku xiran tahay ujeedada loo isticmaalayo. Okay? Anaga kuwa hadda ka hadlayno waa rectangle waa, afar geesood waa, okay? Okay? Ina isla fahanay ayaa rajeynayna. Rectangular in shape waaye waxaana support gareeya beams, okay? Intee ka support gareeya marka? waxay ka support gareeyaan two of its four sides. Yani waxay ka support gareeyaan laba dhinac ayaa laga support gareeyaa, okay? labada dhinac waa kee? labada dhinac oo dheerka waa, okay? waxaan isla arkaynaa marka sawir ayaan isla arkaynaa si aan u fahanno. Okay? qaacidadana waxaa lagu gartaa one way iyo two way, okay? dhinaca dheer ayaa waxa u qaybinaysaa dhinaca gaaban haddii qiimaha kuu soo baxo oo two ka weynaado one way waa. So marka sawirka aan tagno si fiican ugu fahanno. meeshaan hadda waxaa haysanaa slab, okay? slab ayaan haysanaa. Okay, slabkeena marka waa afar geesood waa, okay? Calaamadan waxaa lagu muujiyaa one way-ga, okay? Waxa laga wado waxay tahay culayska hal dhinac u gudbinaa. So marka dhinaca dheer ayaa u qaadanayna lx u qaadanayna. Macno ma sameynaa xarafka ly u qaadan kartaa, dhinacana lx u qaadan kartaa. Hadba dhinaca dheer iyo dhinaca gaaban leh ku kala saarnaadaan. dhinacana wuxuu yahay longer span, dhinacana waxa waaye shorter span, okay? So marka dhinaca dheer oo loo qaybiyo dhinaca gaaban outputka ama natiijada kaga soo baxay laba ka weynaato one way ayaa leenahay, okay? qaabkii ayuu culayska u gudbiyaa marka one way. culayska meeshaan ku soo dul dhacaa tusaale ahaan. culayska meeshaan ku soo dhacay, okay? culayska markuu intuu ku soo dhaco intuu geena asal waxa la yaqaanaa culayska meesha u dhow markasta aadaa, okay? tusaale ahaan hadda marka halkaan culays la soo saaro directionka ugu dhow waa kan waa ly waa, okay? waa waxaan ka wadaa ila soco hal mar ina ila fahantaa rajeynaa. beamkan halkaan ku jiro iyo beamkan halkaan ku jiro culayska halkaan la soo saaray way u dhow yihiin marka loo fiiriyo kan labadan beam, okay? so marka muxuu sameynaa culayska halkaan marka la soo dul saaro halkaan uu aadaa, okay? half iyo half waa macnaha culayska, halfna halkaan uu aadaa, okay? so marka that's why haddaata waxaan dhahnay markaan ka hadlaynay laba dhinac ayaa laga support gareeyaa oo afartiisa dhinac kamid ah. afar dhinac oo leeyahay waa sax, laba kamid ah laakiin beamskooda la design gareeyaa waa labada dhinac oo dheer waa. that's why sababta hadda u gelinayna beamska waa saas waa. culayska halkaan aadayo oo halkaas ayaa laga support garee doonaa, okay? labadan beam oo kale practical ahaan waa la gelinaa oo beam am noqonayo, okay? waxa waa balse laakiin minimum waa macnaha minimum ayaa lagu design gareynaa koodka, okay? balse kuwan design sax ayay u baahan yihiin in iska celiyaan bending ka imaanayo maadaama isbaankiisu u dheer yahay, okay? so marka in la ila fahmay ayaa intaas rajeynaa, okay? two way slab marka isla fiirino. two way slab isagana waa iska rectangle waaye, waa nooc kamid ah conventional slabka rectangle ah. waxaa support gareeya marka beams afarta dhinac ayaana ka support gareeyaan, okay? afarta dhinac ayaa laga support gareeyaa. qaacidadan ayaana lagu helaa. qaacidadu maxay tahay? dhinaca dheer oo loo qaybiyo dhinaca gaaban haddii ay la ekaato ama ay ka yaraato two waxaa leenahay waa two way, okay?
waxaa u jeednaa hadda marka islaam meeshaan noo yaal dhinaca dheer waa kanaha dhinaca gaabanna waa kanaha marka la isku qaybiyo dhinaca dheer oo loo qaybiyo dhinaca gaaban haddii ay la ekaato ama ay ka yaraato 2 waxaan leenahay waa two way slab okay so marka loadka qaabka u transfer gareyna loadka marka halkan uu soo fuulo waxaa dhacayso beamiska dhinaca dheerka ku jiro iyo beamiska dhinaca gaaban ku jiro isku qaab uma qaadayaan kuwa dhinaca dheer ku jiro waxay u qaadayaan as a trapezoidal macnaha qaabka shape-ka trapezoidalka ayay u qaadayaan macnaha sida sawirkaba aa ka arkay wax kale ma trapezoidal form wuxuu ka dhalanaa culeyska saan hadba ku soo weynaana mujida okay saan uu socdo oo okay soo yaraana marka trapezoidal form uu sameeyna balse dhinaca gaaban oo beamiska shorter side-ka ku jiro triangular ayuu u qaadaa okay waxa waaye qaabkan ayuu u geynaa okay so marka waa u jeedaa labadan sawir oo kale marka u imaano waa isla faahna qaabka culeysku u gudbiyaan iyo qaabka lagu ogaado waa isla faahna one way-ga oo kale hadeertaan one way-ga waxa u jeedaa hadda dhinacan waa dhinaca gaaban okay sababtoo markasta waxaa laga support gareeyaa aan dhahno dhinacan waa dhinaca lx okay dhinacaana waa dhinaca dheer waa dhinaca supportaha laga geliyo waxaan dhahnay supported by two of its four sides okay afarta dhinac laba kamid ayaa laga support gareeyaa okay so marka dhinacaasna waxa waaye waa dhinaca okay cafwan marka qaacidadan raacna kana lx kana ly waa okay intaas isla fahanno ana according to our formula marka la fiiriyo dhinaca dheer waa lx dhinaca gaabanna waa ly so marka dhinacan waa laga support gareena wax bendina kama sameysmaayo culeyska markuu soo fuulo halkan ayuu aadi doonaa culeyska okay culeyska dhinacan ayuu aadi doonaa dhinacaas ayaana beamka geli doonaa balse dhinaca kale oo gaaban wuxuu ka sameyn doonaa bending ayuu ka sameyn doonaa waa meesha halka dhinaco oo caloosha uu ka sameynayo okay two way slabka balse afarta dhinacba waxaa uga jira beam ayaa uga jira afarta dhinacba lx iyo ly ba waxaa uga jira beams ayaa uga jiraan waxaan una u sameynaa bendingka wuxuu u sameynaa labada dhinacba uu ka sameynaa okay dhinacan ly iska dheh dhinacana wuu ka sameynaa bendingka okay applicationka marka hadda isla fiirino applicationka waxa waaye one way-ga waxaa loo isticmaalaa inta badan meelaha loo rabo isbaankooda inuu dheeraado sida bridge-ka oo kale culvert iyo drainage okay meelaha la rabo in tusaale ahaan waxaa ognahay rectangle-ka dhinacna waa balac dhinacna waa dheer dhinacna waa dhirir dhinacna waa balac okay width oo kale so marka meesha la rabo in dhirirkeeda uu dheeraado tusaale ugu fiican waxa ku fahmi kartid waxa waaye waa barandada oo kale barandada hadda waxaa aragtaa dhinacay u dheertahay dhinacna u gaaban tahay waxaa lamida hool keligiis meel ka dhisan oo kale waxyaalahaas oo kale ayaa loo isticmaalaa applicationka oo two way slabkana maxaa waaye meelaha low isbaanka ah waa meelaha gaaban ama waa isla eg yihiin ama wax yara kala wen yihiin okay sida guryaha water tank okay waxa waa meelaha biyaha lagu keensado okay yacni brag biyo lagu keensado oo xoogaa elevated ah meel sare saaran oo kale markii la rabo in la support gareeyo waxa waaye waxay kaaga baahan tahay okay bragtan oo kale waxay kaaga baahan tahay two way waaye slabkeeda okay slabkan macnaha markii loo design gareynayo okay meeting holiska oo kale waxyaalahaas oo kale marka ayada marka waxaa la isticmaalaa markii lengthka waa kanaha warka hadda ku sheegay slabka markii isla eg yihiin fiiri widthka iyo lengthka markii isla eg yihiin oo kale ama ay isku dhow yihiin oo kale la isticmaalaa inta badan waa most apartments okay